runtu waa waxyaalaha jannada qofka sabab ugu noqdo kuwa ugu waaweyn sidaas daraadeeda nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam lix arrimood oo uu yiri qofkii lixdaas ii damaanad qaada jannad u damaanad qaadaya runta kamid lixdan arrimood awoodaada iskugu gee inaad xaqiijido haddaad xaqiijido janna meel ku taal waa la tirsadaa nabiga maxamed sheegay sallallahu alayhi wasallam nabi maxamedna iskama hadlo waxa weeyaan waxa uu ku hadlaa waa wax ilaahay u soo waxyooday wama yandiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha nabiga sallallahu alayhi wasallam wax uu iska jeclaaday iskagama hadle wax loo soo waxyooday oo rabbi xaqiisa looga sheega lixdan arrimood oo soo socotana nabi maxamed sheegay sallallahu alayhi wasallam qofkii damaanad qaado ilaaliyo lixda sifo yeesha janno inay meel u taalo waa damaanad وانا حديث صحيحة امام احمد مسند كيسو كوريي عبادة بن صامت ايام نبي كوريي صلى الله عليه وسلم ورسولك يري صلى الله عليه وسلم اطمنوا لي ستا من انفسكم لح اخرمات نفتينا ايقا ضمانات قاضة لح اخرمات ان نفتينا لغا هلو اي ضمانات قاضة أطمن لكم الجنة أنا جنة إنين ضمانات قاضية إلهي باساس أسو وحيودي محييه اللحظة أرمات ومهم قفك مؤمن كائن تطر صدا حفظيه ونقن قليه ورسولك يري صلى الله عليه وسلم أصدقوا إذا حدثتم مركعات هاد ليضان هون شيغا مركعات هاد ليضان هون شيغا اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم أرنت لباد واحد تهي هداد بلن قادم بلن كيفولي وحسن كسينا وكو إيمانا وحسن كو يلا وحي آدادك أو بلن قادان بلن قادك أوفية واحد إلهي ويناد شرديوت كاكشان بلن قادان أوفية أرنت صدحات وأدوا إذا أتمنتم هدي وحلين كو آمنوا مسؤوليات حالا سر وحي لين كو امنو قلت امانه ارنت افراد واحفظوا فروجكم فرجيالكي نزينا كايراليه يا لواط ارنت شناد وغضوا ابصاركم انبهن اللابه وحارانتها فيرسنين مقالده حنحن يا وحي الله كا حرمي ضمان هداواننا هداد جنة ربطان مدى اللحاظة ugu dambayda waa kufu aydiyakum gacmihiina dadka ka celiya dadka hadilina dadka hadhicinina xoolahooda ha qaadanina xooga ku qaadanina ha xadanina gacmihiina dadka ha ka nabad galeen waa xadiis saxiix imaam ahmed uu wariyay lixdaas qofka damaanad qaada nabi maxamed janno u damaanad qaaday sallallahu alayhi wasallam lixdaasna maxaa kamida runtiya kamida qofka run laga helay waa liibaanay runtu waa asbaabta najaadka وأسباب بدبادة أسباب تقفك إلهي مركو بدبادة لا دونه وسببها اللي بدباده حديث البخاري ومسلم صدح دين وقدك انت قالان نقحوا أفكا انت كون صدر الظلمي والضبالي محيير هدين مركا يسور صدين وحيير هدين والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق dadkii naano dhageyst wallahi ma aawaynu sanin badbaadinayn waxaan run ahayn ee qof kasta oo naga mid ah falyad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu qad sadaqa fi qof kasta oo naga mid ah ilaahay ku bariyo amal uu og yahay ilaahay inuu uga run sheegay amal uu og yahay inuu ikhlaas ka aha run sheegidu waa inuu ikhlaas ka aha oo rilada rabbina ku dalbayda ma ahana wax kale آدم كدوني وكذلك حديث البخاري ومسلم كعب بن مالك نسيداسوها كعب بن مالك مركي وجهادك كهري صدح دي السحابي تطبضنا كهرين وحوري مركي نبي مقالة المدينة سوق قليل سوق نوادي كهر صدم وسواس يقول وريقي أباد ديك اللي يسولي قعانا وحن كو قاري إنا نقول شيئا نبي صلى الله عليه وسلم مركي ويمد المسجد كفريستي dadkii gadaal maray munaafiqiinta aha
inta u tageena mid walbaaba intaas cudur daar sheegtay saasan ku haray qalbi xumo ma qabin qayrka waa jeclaay nasiiban ii galin mid walba markaas nabigu dhahay ord ma la eedeynay anigu markaan u imid waxaan idhi rasuulka Allah haddaan ag fariisalaha dadka boqorada aftahnimo aan iskaga qanciyo waalay ilaahayna waa isii laakiin waxaan ogahay adiga haddaan isku dayo hadalan isku aad-aadsado beena inaan kugu qanciyo in ilaahay caddaynayo oo ilaahay fadeexaynayo waxaan kuu sheegayaa anigu waa haray cudurdaarna ma lahayn كانوا روم شاويرو النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وحو كسو روغي صدخدي runta sheegtay hal qof lama hadli karo xanuun weyn ay dareeman dadkii dhan waa laga go'doomi kuwii beenta sheegayna dadkooda iska dhex galeen beentu waa xanuun baabi'i waxay u qaateen inay guuleysteen xoogaa dadkii haddaan wax hadda colaadinaya la arag laakiin maxay ku dambeeyday waa kansar waa kankare waa AIDS waa cudur aan rajo lahayn beentu وحيا سماده كسو دغي صدخدي runta sheegta ilaahay cadde inay run sheegeen una ka toobad aqbalay ila qiyaam saaca waxa la aqrinaya ilaahay inuu ka toobad aqbalay ayna run sheegeen iyo amaantooda qoladii beenalayaalka ah maantii koobad beenta inay nabiga iskaga qanciyaan ku fakareyne ilaahay wuxuu ku tilmaamay tilmaan wax lagu tilmaamo ku ugu xuma rijsi iyo qurun inay yihiin Allah ku tilmaamo ila qiyaamaha laga gaaro waxa la aqrinaya sifaadoodii xuma iyo ceebtoodii fadeexadoodii la aqrinaya been hadaad istiraado xoogaa wax ku badso xoogaa markaasna dadka indhahooda iskaga jeedi waxaan baabi'iye wax yar qandhajabiyo weey laakiin fadeexo iyo dulliyad ku dambaynayda hadaad runta laakiin istaagto ilaahay faraj ayuu ku furayaa waxaadna ku dambayn doontaa farxad iyo cizo iyo karaamo ilaahay agtiisa inaad ka yeelato sidaas ayaad ku dambayn doontaa runta waa sifaada ilaahay adoonka ku jeclaado qofkii rabo ilaahay inuu ku jeclaado runta ku dadaal Babarani wuxuu wariyay nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam annaga waxay yiraahdeen ag joogna saxaabadu ayaa rasuulku wuxuu u yeertay biyo uu ku weesa qaato gacantu galiyay biyihii uu ku weesa qaadanayaan raacnay waa aruursanay waa kabkabanay markaasoo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ma hamalakum ala ma sana'tu maxaa in ku xambaaray waxa aad sameeyeen markaasaan nabi yiraahdaan hubbullahi wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa jacaylna nagu xambaaray dhageysta marka nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay waxa ilaahi weyna adoonka ku jeclaado yaa raba in ilaahay jeclaado ilaahayna wuxuu sheegay adoonka markuu jeclaado wuu ilaaliyaa dunuubtu ka ilaaliyaa wax alla wuxuu weydiistuu siiyaa wuxuu ka magan galana waa ka magan galiya adoonka ilaahay markuu jeclaado nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri mataga wuxuu yiri fa in ahbabtum an yuhibbakumullahu wa rasuluhu fa'addu idha tumintum wasduqu idha hadathtum wa ahsinu jiwara man jawarakum marabtan Allah inuu idin jeclaado hadaad rabtaan ilaahay inuu jeclaado wixii leedin ku amaanaysto amaanada gudta markaad hadlaydaan run sheego carabkiina been ka ilaaliya dadka dariska in la ahna dariskooda wanaajiya qofkii raba ilaahay inuu jeclaado saddexdaas arrimood daa'im waxaan ku soo qatimayaa athar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu oo ibn Muflih al-adab ash-shar'iyya uu ku wariyay wuxuu tilmaamayaa qofka saddex arrimood laga helo saddex inuu dhaxli doono haddii saddex laga helo dadka saddex arrimood ilaahay ka sii doona Ali ibn Abi Talib wuxuu radiyallahu anhu man kanat lahu 'inda an-nasi thalathun wajabat lahu 'alayhim thalathun qofkii dadka saddex arrimood agtooda ay u taalo oo saddex arrimood kula dhaqma waxa uu waajibayo dadka xaqooda laga siinayo ilaahay ka siinaya saddex arrimood man idha hadathahum sadaqahum waxa ugu horeeya qofkii markuu dadka u sheekaynay ama la hadlayo uu run sheega wayda tamanu lam yakhunhum markii ay aaminaan qofkan qiyaanin wayda wa'adahum wafa lahum markuu dadka wax u ballan qaado qofka uu oofiya
وجب له عليهم أن تحبه قلوبهم كو وحا واجبيدا إن قلوبتهم جعلاته وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم waxaa kale uu waajibaya carabkooda amaan in loo saaro oo ilaahay u saaro wa tadhara lahu ma'unatuhu waxaa kale uu waajibaya in dadkaas ay garab iyo gaashaan u noqdaan ay u kaalmeeyaan oo ilaahay uga dhigo ansaar u gargaarto saddexdaas marka hadaa danaynaydo in ilaahay quluubta mu'miniinta jacayl ku dhex dhigo in ilaahay sidii nabi ibraahim uu ilaahay ka bariyay dadka mu'miniinta dhexdooda amaan wanaagsan alla ku dhigo in ilaahi weyna dadka kaaga dhigo ansaar hiil iyo hoo kula garab taagan hadaad rabto saddexda hore ilaasho haddii aad hadlaydo u run sheeg hadday ku aamineen ammaanada u gudo markaad wax u ballan qaadana ballanka u oofi waxaan kelimadayda ku soo qatimayaa naftayda iyo walaalaha muslimiinta naftoodaba waxaan ugu baaqayaa aan xaqiijinno wanaagga ilaahay iyo rasuulkiisuna amrayaan waxaan helaynaa wax aan ku faraxno oo aanan marnaba tasawuri karin addoonku inuu adduunka ku gaaro waxaan helaynaa inaan ku noolaanno adduunka intaan joogno jannada adduunka qofkan gelina midda aakhira ma galo waxaad gaaraydaa darajo aadan marnaba malaysan inaad gaaraydo laakiin waxaa ka horeeya imtixaan oo ah sifaadda lagu gaaro rilada rabbi waa wax lagugu imtixaanaya inaad ku dadaasho si aad imtixaanka markaad uga gudubto miraha aad u gurato kelimadda intaasaan ku soo qatimin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina